waxaan ku baaqnay mudaharaad dhacaya 19 bisha maalinta Jimcaha kana dhacaya daljirka Dahsoon dadka Soomaaliyeed inay isugu soo baxaan oo aan sheego taariikhda iyo maalinta iyo makaanka uu ka dhacaya waa saddexdaas aan ku heshiinay oo dadka Soomaaliyeed aan ka codsanayno oo magaalada Muqdisho ku nool inay isku soo baxaan si nabad ah oo ay muujiyaan in aan dalka Soomaaliyeed sharci darro cid ku xukumi kartaa aysan jirin maanta inta soo istaagno waa halkaas madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ee hadda filla Soomaaliya sida xoogga ee sharci darrada ku jooga inay dadkan u muujiyaan inuu halkaas saas ku joogi karin sida la socotiin madaxweynaha iyadoo dhuusamareeb la fadhiyo mandatekiisa ama duxileedkiisana 2 maalin ay ka dhiman tahay ayuu ka soo istaagay fadhigii oo uga soo istaagay arrin yar oo la xalli karo ah yaa noqonaya gudoomiyaha degmada Garbahare ayuu uga soo istaagay asagoonan muddo xilaad sharci haysanin iyo asagoonan mandate siyaasadeed heshiis lagu aan haysanin oo si ula kaca oo u soo istaagay wuxuu soo istaagay inuu tijaabiyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho jooga oo ku tijaabiyo inuu si sharci darro asoona xil haysan oo ku xukumi karo talada dalka oo ku haysan karo saas daraaddeed annaga waxaan rabnaa si nabada inaan ku muujino talada dalka inuusan haysan karin sharci darrana uusan ku haysan karin sidaas nabadaan aan isugu soo baxno madaxweynahana hadda wuxuu filla Soomaaliya ka bilaabay dukumeentiyada inuu si sharci darro uga soo saaro oo taariikho hore u sameeyo kalsooni darro uu ka qabo inuu maanta dukumeenti saxiixo intuu iska dhaafay iyo wuxuu ka shaqeeyaa inuu dukumeentiyo taariikh hore u sameeyo oo ku soo saaro magac dawladeed ama magaciisa uu ku soo saaro asagoo sharciga iyo dastuurka dalkaba intaba jebinaya annaga marka waxaan rabnaa inay wadadaas xigaal shiidada waxaa laga sheegay war waxa subxaaya waa waxa sankaaga maray see waay ma rabo dhahay inay wada halaq maray noqoto aniga sankeyga oo noqdo farmaajo inuu sharci darro dalkan ku joogo intuu sharciga ku joogo wuxuu dambi iyo dulmi geysto oo dadka hadda intaan taagan u geystana waa wada ogtihiin ma rabno inuu asoo sharci darrada dalkan joogo wuxuuna ku sheekeeyaa asaga inta yar ee filla Soomaaliya la joogtaa siyaasiyiinta kaliya inay hayaan waxaan rabnaa inaan muujino cidday hayaan farmaajo inay shacabka tahay cidda uu xoog ku xukumayo shacabka ay tahay cidda uu jidadka xirayo shacabka ay tahay madaxweynaha waxaa laga kari la'yahay banaadir lagu shiro magaalada Muqdisho lagu shiro laga kari la'yahay markaasuu habeenkii saqdhax inta tawiituur uu leeyahay Garow lagu shiro reer Garow markay dhaheen war Soomaali caasimada ay leedahay caasimada hal isugu tagana waa diiday haddana mid kale oo tuur wuxuu yiri Baydhabo hala tago haddana waa soo tuura habeen waa soo kaco xulay 13 kursi aan banaadir siiyay nin jahwareer iyo dadka Soomaali isku diray ka shaqeeyo waaye xilkiisii waa dhamaaday si nabada inaan isaga bixnaan rabnaa dadka reer Muqdisho nagu taageera jidadka in ka xiran canshuur dheeraad linka qaada gabdhihiina haweenkiina jidadka ku dhala nolol iyo waxbarasho caafimaad isbitaalka lagu wada dhimanayo covid lagu wada dhimanaya oo oxygenkii la yahay xagee aad hantidii dawladda iyo wixii loogu talagalay intaan ka badan dulmi lagu masafri karo na taageera soo baxa isku soo baxa idinka awoodda shacabka ah taas aan ku baaqaynaa waa maasantii